waan xubnihiina ka soo jeeda dhinaca Soomaaliland waxaad magaalada Muqdisho ku qabateen madaxda sare ra'iisul wasaare ku-xigeenka xildhibaanada adigoo wasiir shir weyn aad ballaaran oo Soomaaliland ka soo qayb gashay xubno fara badan oo isugu keenteen shirkaas waxa la tashiga bulshada rawaqooyi ee ku aadan higsiga iyo dastuurka iyo dawladnimada dadka xagee laga keenay marka hore ergada 170 ka xagee ka timid ergada 170 ka waxay ka timid Soomaaliland beelaha Soomaaliland diga dadka Soomaaliland diga oo dhan bay ka timid waxay isku jireen sida qaybaha bulshada oo dhan salaadiintii haweenkii dhalinyaradii siyaasiyiintii xildhibaanadii diyaarada xagga looga soo qaaday diyaarada laguma keenin dalkan ay ku nool yihiin 700 iyo 1 milyan ka badan baa ku nool caasimada Soomaaliyeed waa dadkii gobolada waqooyi oo Muqdisho joogay kuwa kalena way ka yimaadeen waqooyi bay ka yimaadeen oo annaka marti qaadnay waa noo yimaadeen oo shirka naga qayb qaatay shirkaas markaa maadaama fursadan siisay laba qodob baa ka soo baxay qodob kamid ah waxaanu kaga qayb qaadanay wixii socday ee ahaa talada guud ee Soomaaliya ka bixinayso dawladnimada Soomaaliya si ku sii soconayso ayaanu qaybteedii ka dhiibay talabaadna waxaanu kaga hadalnay in dalka Soomaaliyeed u baahan yahay siyaasiyan si midnimo loo helo in lala yimaado qorshe siyaasadeed oo Soomaaliland lagu soo dhaweeyay shacabka Soomaaliland waa ogtahay dal buuxa oo 1960 ka qaatay xornimadiisa Ingiriis wuxuu la midoobay 1 July dal kale oo Soomaaliya la dhihi jiray oo xornimadiisa ka qaatay Talyaani markii la isu yimid Act of Union kii la galay waxa la yimid niyad wanaagsan oo shacabka Soomaaliland oo siyaasiyiintii waxaad noo keeni kartaan oo kaliya midnimo wax kale oo dhan adaa raba anaku ma rabno midnimo laguma soo noqon karto siyaasiyiintii halkan yimid sacrifice kaas isla markiiba koonfurta maanta la isugu haystaa markay yaabeen gudoomiye iska qaateen gudoomiye baarlamaanka tiro waxay yiraahdeen waa horta idinku la maanta qaato wax inoo dhis anaku ma noqon karno dib uma noqon waa la nagtigaray midnimadaas iyo dadka niyadii wanaagsan la yimaadeen waa la dayacay ila maanta waa dayacay ergooyinka halka ka soo baxay waxay yiraahdeen anaku waxaan u aragnaa Soomaaliya inay dib ugu dhisato true federalist sidii 60kii lagu midoobay inaynu haddana dib ugu midoobo idinku ama shan isu jijibiya ama maamul goboleedyo noqda ama status noqda idinka idinka labo inaan waqooyi koonfur aniguna saasan aaminsan aniga wasiirka maxaa laga yeelayaa marka maamulada gobolada waxay doonaan ha noqdeen weyn Act of Union ki dib loogu noqdaa weyn siyaasiyan loo heshiiyaa midnimadu ay ku timaadaa hab la taageersan yahay oo dadka waqooyiga ay ku qanci karaan oo niyadii wanaagsaneyd la yimaadeen hadday ku goobeen maanta la noqdeen way niyad wanaagsan maanta miska loo saaray waata su'aal baan ku weydiinayaa halkan way jajaban tahay Axmed Madoobe iyo Shariif Xasan iyo Cabdikariin iyo team kale oo hadda la aasaasay waa shan madaxweyne madaxweynaha isteedka sare ah Soomaaliland laakiin hadda waa hal madaxweyne ma iyaga la jajabinayaa iyagana madaxweynayaal baad u sameynaysan oo sida la mid ah mise kuwan ba madaxweynayaasha laga soo qaadayo koonfur hal madaxweyne yeelanaysa Soomaaliland hal madaxweynaha laba unit la sameynaya horta marka ugu horeysa anigu halkan dawladda Soomaaliyeed ku dhisi maayo siyaasadda Soomaaliland ay qabto shacabka Soomaaliland qabo ay sheegay marka kadib markii farsamadii loo tago waa wada heshiiso waa ta su'aal muhiim ah inaan ku weydiiyo shirka halkan aad ku qabateen marka idinka madaxdii Soomaaliya ah laakiin deegaan ahaan ka soo jeeda halka wuxuu xagga ka kiciyay xiisad aad u ballaaran macal salaadiintii xildhibaanadii wasiiradii go'aano adag la qaatay xataa saameyn waxay ku yeelatay xiriirka Soomaaliland iyo dawladda Turkiga in la yiraahdo dawladda Turkiga ka baxdo halkan qonsulka degan halkan ka baxo qonsulka inuu negotiation iyo waan galo xiisada inta la eegad abuurteen iyo qaadanay mas'uuliyadda ilaa wada hadallada Soomaaliland iyo Soomaaliya u socday haddana Soomaaliland waxay tiri wada hadal daba gali mayna marka haday sidaas sameeyeen horta marka ugu horeysa Turkigu ay umaleyn maayo inuu isagu wax shaqo ku lahaa ergadii halka isku saasa loo arkay wada hadallada shaqo ku lahaa ma jirin madaxda Soomaaliland hadda ka talisan waxa loo baahan yahay siyaasad Soomaalinimo oo haddana xaqiiqdiina dadka ay ku helayaan in la yimaadaan Soomaaliland anagu Soomaaliland baan ka soo jeednaa shacabka Soomaaliland waa metelna waxaan ku metelnaa dan
dantooda oo midnimada Soomaaliya ku jirta taa aan hadda ku sheegay oo Soomaaliya inay dib u midowdo two federal states sidii lixdankii lagu midoobay ayaanu ku midnay kadibna la qaybsado power sharing kale ee dawladda la qaybsado ayaanu ku midnay waxaan u aragnaa maanta adduunku maadaama uu midoobayo inaanay waxba Soomaaliya inay gobollo yar yar oo tamar daran amarada yar yar noqoto inaanay faa'iido ugu jirin ganacsiga Soomaaliya inaanay faa'iido ugu jirin shacabka Soomaaliya inaanay faa'iido ugu jirin gobolka inaanay faa'iido ugu jirin Soomaaliya mida oo dadku system baa dadka tanqiya America waa konton dawlad konton federal state waana qaracsan waxay ku noqdeen powerka adduunka ay ku noqdeen haday Minnesota halkan iyo halkan noqon lahaayeen waxa ma gaarin waa in vision dheer la yimaado oo Soomaalinimo in la yimaado marka laakiin visionka iyagu kaas weeye in Soomaaliya dib u wada hadasho midnimadii Soomaaliya sidii ku sii jiraysa laba dhinac loo hadlo laga wada hadlo dadka Soomaaliland xaqoodii la siiyo taa waa in la siiyo